Habeenkii ayaa la gaaray, Kaanana waxay dareentay inay markaasi ay luntay. Dayaxa iftiinka ka imanaya ayaa wuxuu ahaa waxa kaliya oo markaasi u ifinaya, laakiin marar badan ayay ku dhacdhacday mugdiga kaynta, waxaana markaasi jarjaray geedaha yaryarka qodxahooda. Ugu dambeyn, Kaana markaasi dhulka ayay iska shiifatay, waxayna bilowday inay oydo. Waxay lahayd awood aad u weyn, laakiin awooddu si kasta ha weynaatee, cidna kama dejin karto dambiga ay dareemayso. Qalbigeeda waxay ka ogeed inay markaasi ay waday sir aad u xun, xataa aysan hooyadeed ama miji aysan ogeen. Iyada way ogeed sababtay cadaabta markaasi u mutaysatay. 8 bilood ka hor, Kaana waxay u safartay Nishitomi sababtoo ah miji ayaa waxay la safartay faamilkeeda si ay u soo booqdaan qaraabadooda. Markaasi Kaana waxay rajaynaysay inay miji si sira kula kulanto, inkastoo ay been u sheegtay waalidkeeda. Markaasi, maadaama ay hooyad ka shaqayn jirtay guri ay dad lacaga leeyihiin, aabaheedna uu markaas saaxiibadiis khamri la cabayay, waxay go'aansatay inay guriga ka soo dhuumato, kadibna ay doon u raacdo Nishitomi, ayna soo laabato intaysan waalidkeedaba ogaan inay guriga ka baxday. Laakiin waxyaabuhu maysan dhicin sidii u qorshaysay. Markay meesha gaadhay, markaasi Kaana waxay heshay miji guriga ku nooleed, laakiin waxaa ka buuxay qaraabadoodii. Markaasna haweeney kasta uma aysan ogoleen guriga inay ka baxdo. Miji Kaana waxay ka aragtay daaqada, isla markiina waxay u sheegtay in meesha ka tagtay intaan la arag. Markaasi aad ayay uga xumaatay, laakiin waxay aaday dhinaca suuqa si ay cunto u hesho intaysan gurigeeda ku laaban ka hor. Intaysan dhaqaaqin ka hor, nin aad u weyn ayaa gadaasheeda soo istaagay, markaasna dabada ayuu ka qanjiriiftay. Wuxuu markaasi u ekaa mid khamraysan, wuuna dhacdhacayay, hadalkiisana ma saxsaneen. Markaasi wuxuu ku dhahay waxyaabo aad u xun, intii dadku ka qaban lahaayeenna way ku qaslayeen erayada aadka u xun oo iyada ku dhahayay. Wuxuu bilaabay inuu dhegta ugu sheego waxyaabaha aadka u xun uu rabo markaasi inuu ku sameeyo. Kaana waxay rabtay inay wax ku dhufato, laakiin way iscelisay. Waxay ahayd haweeney yara oo aan la rabin inay meeshan joogto. Haddii wax ku dhufato, dadkoo dhan ayaa arkayo, waxayna weydiinayaan meesha ay ka timid. Markaasna waalidkeeda way ogaan doonaan, sidaas darteed way iscelisay. Kaana waxay rabtay sida ugu dhaqsiyaha badan meesha inay ka baxdo, laakiin ma uusan ahayn ninkani mid quusanaya. Wuu isku dhajiyay, kadibna wuxuu bilaabay inuu sii wato arrintiisa inuu u sheego waxyaabaha uu rabo inuu ku sameeyo. Kaana xanaaqeedii way celin weysay, ugu dambeynna si xoog ayay u kala tuurtay, mana aysan samayn lahayn sidaas hadduusan ahaan lahayn mid sarkhaansan. Gadaal ayuu u dhacay, laakiin isla markiiba wuu dharbaaxay. Markay Kaana dhacday, waxay isku diyaarisay inuu garaaci doono. Ninka markaasi laad ayuu ku dhuftay, candhuufna wuu ku tufay. Markaasna wuxuu u sheegay iyada waqtigiisa inaysan mudnayn. Kaana markaasi waxay bilowday inay oydo. Markaasi ninka waxay isdhahaysay wuu tegayaa, laakiin waxay aragtay isagoo istaagay. Way naxday Kaana markaasi. Waxay istiri wuu soo laabanayaa oo uu kugu samayn doonaa waxyaabihii uu dhahayay, laakiin ma uusan u dhaqaaqin dhinaceeda ee waddada ayuu ka leexday. Wuxuuna aaday dhinaca webiga, xaggaasoo ay Kaana maqashay gabar kaligeed isku heesaysa. Gabadhii ayuu markaasi iska hor istaagay. Kaana way fadhiisatay si uu u eegto, waxayna aragtay gabar yaroo aad u qurux badan, taasoo markaasi nadiifinaysay doon. Markaasi ninka markay aragtay gabadhii waa ay salaantay. Kaage, ma aan filanaynin inaan ku arko, ayay dhahday. Kaana markaasi way daawanaysay gabadhii yareedoo markaasi dhoola cadaynaysa, ninkiina dhinaceeda u dhaqaaqayo. Waa taqaanaa magacayga, waxaa laga yaabaa qadar inay tahay. Gabadhii markaasi dhoola cadaynteedii way baabaaday. Aniga, adiga, laakiin intiisa dhammayn ka horba wuu ku soo booday gabadhii. Gabadhii markaasi waxay bilowday inay la dagaalanto. Ninkiina markaasi wuxuu si xooga ku shuminayay gabadha. Kaana waxay rabtay inay caawiso, laakiin ninkani aad ayuu u awood badnaa. Markaasi waxaa laga yaabaa haddii uu arko inuu ku sameeyo waxa uu ku samayn doono gabadhani. Kaanana markaasi way iscelisay. Kaana markaasi waxay ku dhuumatay geedaha gadaashooda iyadoo afka haysato. Ninka wuxuu ahaa mid aad u daran. Gabadhii markaasi afka ayuu gabtay, waxyaabo xun ayuuna ku samaynayay. Kaana markaasi aad ayuu u cabsanaysay. Waxay awoodaa inay gabadha u tagto ama caawiso, ama ay caawinaadba u dalbato, laakiin markasta waxay ka baqaysay inuu ninkani garaaco. Kaagii wuu istaagay, wuxuuna bilaabay markaasi inuu boorka iska jafo, asagoo ku faraxsan wixii uu sameeyay. Kadibna wuu sii jeestay, wuuna iska dhaqaaqay isagoon gadaalba soo eegin. Kaana way baqday, markaasna waxay ka baqaysay inuu arko. Markii ay hubsatay inuu markaasi uusan arkaynin, ayay kor u soo istaagtay, ayadoo rabta sida ugu dhaqsiyaha badan inay meesha iskaga tagto, laakiin waxay maqashay oohin yara. Gabadhii weli way nooleed, laakiin neefta ayaa dhibaysay. Markaasay Kaana eegtayna
waxay aragtay inay gabadhu gebigeedaba ay markaasi leedahay jeexjeex iyo sidoo kale calaamado garaacid. Markaasi Kaana waxay aragtay inay neefta dhibayso, dhinaceeda ayayna usoo dhaqaaqday. Gabadhii markaasi Kaana ayay soo eegtay ayadoo neef tuuraysa oo isku daysay inay wax dhahdo. Kaana way oyday, waxay rabtay inay u sheegto gabadha inay markaasi caawin weyday oo ay markaasi cabsatay. Gabadhii markaasi gacanteeda ayay qabsatay ayadoo Kaana ooyeyso, waxayna ku dhahday caawi, waa ku baryayaa. Kaana markaasi ilintii ayay iska tirtay, waxayna asturtay gabadha ilaa ay intay awooday. Caawinaad ayaan kugu yeerayaa, qof waa inuu xaggan yimaadaa. Laakiin gabadhii ayaa gacanteeda qabatay Kaana oo madaxa ayay ruuxday. Ma awoodo, waa ku baryaa, fadlan ii ogolow inaan iska dhinto. Kaana markaasi ilinta ayay ceshanaysay, way ogtahay xataa haddii qof u yeedho inay gabadhan ay badbaadaynin maadaama uu dhaawac xun soo gaaray. Gabadha yarta gebigeedaba aad ayay u dhiig baxaysay. Ii ogolow inaan ku caawiyo, ayay dhahday Kaana. Marka hore waan ku caawin waayey sababtoo aan baqayay. Gabadhii ayaa markaasi waxay ku tiri idil ayadoo markaasi ay neef tuurayso. Xanuunku waa mid aanan u adkaysan karin. Kaana markaasi si saa'id ayay u oyday, kuma dili karo ayay dhahday. Gabadhiina way bariday ilaa ugu dambeyn Kaana ka yeeshay, magacaaga ii sheeg. Sakura ayay gabadhii si silaca ku tiri. Anigana Kaana ayaan ahay. Kaana waan ku baryayaa, dhibaatadayda ma soo afjari kartaa? Kaana oohinta ayay joojin weysay, way ogtahay gabadha inay xanuun saa'ida dareemayso, markastana ma ay badbaadi doonto, ugu dambeyn way dhiman doontaa. Laakiin si fudud uma dhiman doonto oo way silci doontaa. Waa ku baryayaa, xanuunka uma adkaysan karo, waa ku baryayaa Kaana. Kaana gabadha baryadeeda ayay u adkaysan weysay, ugu dambeyn way istaagtay, gacanteeda ayay soo qabatay, waxayna u jeeday dhinaca webiga. Gabadha aad ayay daciif u ahayd, heer ay dabaalan weysay. Kaana waxay geysay bartamaha webiga, kadibna way daysay oo way quustay. Markii ay hubsatay inay markaasi meesha ku quustayna, biyihii way kasoo dhex baxday. Kaana way iska ooyeysay, gadaasheeda ma aysan maqlaynin wax sharkana. Sakura nafsadeeda ma aysan u dagaalamaynin, keliyaato way iska quustay. Bartaas ayayna ku dhimatay gabadhii. Kaana waxay ku soo laabatay habeenkii labaad magaaladeedii ayadoo markaasi burbursan, wejigeedana wax murugo maaha aan wax kale lahayn. Markay soo laabatay waalidkeeda ma aysan arag dharkeeda qoyan iyo markaasi wejigeeda xun. Markaasina isma aysan weydiin sababta isbuuc dhan ay u halladahay. Markii ay Michi kulmeen, Michi waxay isdhahaysay waxay arrintan igu jirtaa oo murugada ah inay ka xun tahay maadaama ay waqti wada qaadan waayeen. Markaasna cidna ma aysan ogeyn waxa ay Kaana dareemaysay iyo sidoo kale waxa ay samaysay. Habeen walba wejiga gabadha ayaa hurdadeeda ugu iman jiray, markaasna bilo dhan ayay sidaas ahayd. Bilo kadib ayay markaasi gabadha wejigeeda ka baaba'ay. Laakiin camal kasta natiijooyin ayuu leeyahay. Kaanana waxay go'aansatay inaysan mar dambe fulaynimo muujin doonin, wayna istaagtay ilinta ay iska tirtay, waxayna go'aansatay inay heli doonto waddadii uga bixi lahayd kayntani.